midda koowaad waxay tahay iyaa iskale baaliyay gaalaysiinta qofka gaalka ah qofkan gaaloobay in la gaalaysiiyo gaalnimadiisa la sheego yaa iskale su'aashaasna waxay ku timid dad culamo قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله. waxaa jirta su'aal midda koowaad waxay tahay iyaa iskale baaliyay gaalaysiinta qofka gaalka ah qofkan gaaloobay in la gaalaysiiyo gaalnimadiisa la sheego yaa iskale su'aashaasna waxay ku timid dad culamo sheeganaya ayaa waxay yiraahdeen oo sheegeen gaalaysiintu waa xaq Ilaahay cid bani aadan wax gaalaysiin karta ma leh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxa weeye gaalaysiinta waa xaq Ilaahay marka la leeyahay waa run macnaheedu run weeye laakiin waxa loo jeedaa waxa lagu gaaloobo iyo waxa lagu gaaloobeen waxa sheegaya waa Allah macna sharciyada laga qaadanaya ama waxa lagu sheegaya Qur'aan oo yaani kalaamka Ilaahay baa lagu sheegaya ama waxa lagu sheegaya sunnadii nabiga Ilaahay yiri hal adeeco oo hal raaco oo yiri hadalkiisii oo adeeco rasuul Ilaahay oo intaas shiriyay hadduu la yiraahdo waxaas waa kufri aan qofku waxa sameeyo waa gaaloobay waa la qaadanaya marka kitaab iyo sunna baa loo celinaya wixii gaalin wixii kale marka saasa Ilaahay marka xaq waxa iskale oo gaalaysiinta Allah baa iskale waxa iskale oo gaalaysiinta Allah baa iskale marka leeysa salawada oo sharciyan waa xuduud weey macna hada intaas wax baa lagu dhaqmaaya wax walba marka waa in laga soo jideeyo yaa jideynaya jideynta yaa iskale qofkan in gaal la yiraahdo quraanku marka ka oran maayo hebel waa gaal iyo maarad gabadha hebel waa gaal ama qabiilada halka degan waa gaal ama islaam ka oran maayo laakiin wuxuu ku leeyahay waxa wixii sameeyo waa dhaalimiin waa kufaar waa faasiqiin marka haddaan aragno dad wixii sameynaya waxa weeye oo aan gaalaysiino kitaabkii sharciyada waan raacnay weeye maahane annagu inaanu xaq dijinay maahan mana lihin bayna dijino waxa lagu gaaloobo Ilaahay wuxuu yiri shirka la dulman cadiim inuu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna haddaan hadda iraado ninka shirka sameynaya jannu gelaya waana mu'min Ilaahay hadda iraado waxa noqonaya mucaarid oo sida ibliiskii amarka Ilaahay ridiyo waa noqonaysa waxa laga rabaa inaad tiraahdo shirkigaas uu sameynayo Ilaahay saas uu ka yiri waana saas waa aniga rumaysantahay way shirkiga ka baxayna tiraahdo ma kala sugmay diinta inuu ku tiraahdo wadan hebel waa gaalo iyo qabiil hebel waa gaalo ama qabiil hebel waa muslim wixii waa xirmay waa istaagay laakiin mabaadi baa Ilaahay ku dajiyay mabaadi wax lagu fiirinaya wixii islaamana oo islaam Ilaahay ku sheegayna qof Allah qofka lagu arko waa ku waalsanaysa wixii Ilaahay oo gaalnimo ku sheegay oo kufr ku sheegayna qof Allah qofka ku aragtid waa fogaanaysa waana uga digaysa rumayntii markaas la timid adigu sharciyada Ilaahay rumays diyaad lagu yiraahdo salaada wuxuu inay salaad ahayn yaa iskale Ilaahay baa iskale salaada Ilaahay baa jideeyay oo nabiga faahfaahiyay oo duhur iyo casri waa kala ninka inuu duhur tukanayo inuu tukanayo waan kala garanayna hadduu salaadii qibladii meel aan u tukado ama isoo aan waysa qabil oo u tukado meel qibladii aan waxa leenahay ma tukan anaga marka sharci ma naadijinay waxaan raacnay xuduudii hore loo dijiyay waan raacnay ku fiirinay taas lagu fiiriyaa تحقيق المراد بالإرادة وقفك وينو قرن كرو هدي هذا اللي توجني وحاران توجع أنت لو جينية أنت سقرنا هذا الشرع اللي يقولك معي تبكم حاجة عنا لو بتشري شرع ما أورا إن هبل واقال أما نيكي وحى هذا أو شيء وهذا نيكي على وجهه وحى الحديدي وحى أنت كعنت لو جين كرني ولا شيء عليه الصلاة مركز هذا أنا نين أو وحصل لهين أنت تقول الجلي وحصل لهين حظي وبينا لو هلي توجي قران شيء يميه وانكرني haddaan aragno mid maartay yaani faaxisho soo sameeyay oo lagu koriyay isagoo faaxisho sameynayna inuu sida la garanaya oo waa lagu qaadaya xukunkii haddaan aragno mid qabrigii baryayana waxa garanayaa inuu mushrik yahay oo Ilaahay darka caabudayo haddaan aragno sharci Ilaahay sharcaan ahayn oo ololeynaya oo ku dhaqmaynaale oo tusurhiyay inuu mushrik yahay oo yeris u baahan yahay garanayna macnaha oo kaafir yahay waa looga digaya waa looga yeeraya qofka marka wixii Ilaahay xadeeyay oo xuduud Ilaahay xifdin waaye oo wixii Ilaahay gaalnimo ku sheegay waaye kaas baa halaagsamay oo lumay laakiin ninka xuduud ilaaliyay oo wixii Ilaahay gaalnimo ku sheegay gaalnimo yiri wuxuu iimaan ku sheegay iimaan yiri kaas waa mid ka hanuunsan